labadii kun iyo 16 doorashadii dadbaneyd ee la galay waxaa lagu heshiiyey dalka in loo gudbiyo doorasho qof iyo cod ah aniga markii la doortay bilii ugu horreeyay waxaan ka bilaabay in aan ka hadalno sidii dalka ay uga dhici lahayd doorasho qof iyo cod ah safar yaa waxaan ku tagnay London conference halkaasoo aad nalagu soo xoojiyey dalka inuu uga gudbo qaabkii dadbanaa ee doorashooyinka loona dalka loo wado dhanka qof iyo cod ah communicadoodooda waa ku soo saareen waa ku ballanay kulligeen in dalka loo kaxeeyo dhankaas markii aan soo noqonay markiiba waxaan sameynay guddi ay ka kooban yihiin dowladda federaalka iyo 5 dowlad goboleed ee xubnaha ka ah federaalka waxaan sameynay guddi kooban oo waqti qaata oo diyaariya dhowr mowduuc oo loo baahan yahay in aan afgarad ka gaarno dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah guddigaasi muddo ay ka shaqeynayeen waxaa ka tirsanaa xafiiskayga oo ka socday xubin iyo xubno kale oo ka socday dowlad goboleedyada waxay ka shaqeynayeen doorashada kheyraad qaybsiga iyo judiciary waxaa la oran jiray FNTC yaa la oran jiray guddigii mudday qaateen waxay noo keeneen laba program ay noo keeneen in aan isku afgaranno dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka ah shirkii baydhabo 2018 bishii May lagu qabtay yaa wuxuu ahaa shirkaasi in lagu ansixiyo ama inteenaan aan ku heshiino oo cid walba ay maxaan ku raraa ku saxiixdo heshiiskaas dood dheer kadib 3 bari waxaan gaarnay in heshiiskaas aan soo dhamaystirno oo aan isla qaadanno dalku inuu galo doorasho qof iyo cod ah oo nidaamka la yiraahdo maxaa la yiraahdaa single constituency proportional representation oo dalkoo dhan inuu yahay hal degaan doorasho oo aan cidna la fuquuqin Somaliland iyo cid walbaba ay qayb ka noqoto maxaa yeelay doorashadaas waxay ka dhacaysaa dalkoo dhan meelaha shabaab ku haystaan iyo cid kasta oo ka hortimaada doorashada inaan loo joojin oo dalku uu hore u socdo dhowr bilood ka bacdi anoo aaminsan inaan daahsaday markii aan ka soo noqonnay baydhabo shirka kaliya aan ka qayb galay oo golaha wasiiradu wuxuu ahaa October waxaan uga qayb galay inaan dardar geliyo sharcigan doorashada oo aan faray golaha wasiirada usbuuca ku xiga in ay geeyaan baarlamaanka iyada naftigeeda muddo qaadatay nasiib darro waxay geeyeen muddo yar adiga muddo ka bacdi ay geeyeen waxay geeyeen May 2019 annagoo filaynay bacdama uu sharciga diyaar yahay in baarlamaanku naftigiisu uu muddo kooban qaadanayo isna muddo kale uu qaatay marka lagu daro fasaxyadoodii waxaan saxay ugu dambeys Febraayo 2020 markiina baarlamaanku wuxuu aaday fasax muddadaas baarlamaanku ay ka shaqeynayeen May laga soo bilaabo 2019 ilaa February anigu aan saxay sharcigii completely waa bedelay meeshaan ka filaynay inuu ahaado sharci hal degaan doorasho leh waxay ka dhigeen majoritarian iyo ka dhigeen oo ah degaano dalkoo dhan inuu ka dhaco inta aan diyaarka ahayn oo shabaab ku haystaan meel kale loo waciyo ama meel kale loo wareejiyo taasi ma ahayn wixii aan ku ballanay marka dowlad goboleedyada tan waxay noqotay mid iyagu xildhibaanada sharafta leh ma aqaan cidda u akhrisay inuu kan ka fiican yahay si kasta aan yeelnay inkastoo aanan toos u soo dhexgelin haddana waa la socday markay tagayaan Nairobi
iyo markay tagayaan Jabuuti intaasoo dhan waxaan ogaa in ay ka shaqeynayaan waxaan ahayn wixii hore waxay noo keeneen sharci kaliya ay ku jirto qof iyo cod kaliya laakiin wax alla wixii aan ku heshiinay dowlad goboleedyadii aan ku jirin yay keeneen macnaheedu waxay tahay in degaan doorashadu dalku ay bahsanaato meel walba la geeyo aan ka ahayn Somaliland anuma doonayn Somaliland in la foqo oo gaar loo dhigo sharcigaasi annagu aan keenay wuxuu ahaan lahaa sharci dalka oo dhan mideeyay yuu ahaan lahaa oo haddii cid ay diido aan loo istaajinaynin oo doorashadu ay ka dhacaysaa Shangaani iyo Shibis iyo Kismaayo iyo Baydhabo iyo Marka iyo Baraawe meel kasta ay ka dhacayso oo cid tiraahdo annagu ka qayb gali mayno waxa weeye bacdama ahzaab ay tahay aysan simple majoritarian aysan ahayn laga rabo qof walba in uu 275 soo qorto oo xildhibaan oo sida ay tahay ku salaysan awood qaybsashada beelaha Soomaaliyeed oo aan anagu niraahno markaan soo gaabino 4.5 aan niraahno marka xisbi walba markuu intaas keensado waxa loo codeynayaa xisbigii marka shakhsi ma aha waxa loo codeynayaa xisbiga waxa loo codeynayaa xisbiga mabaadidiisa waxa loo codeynayaa xisbiga hoggaankiisa iyo shaqada uu hore u soo qabtay yaa loo codeynayaa taas ay ka muuqato boqolkiiba 30 dumarka iyo waliba gaar ahaan ay siinayso fursad cidna aan laga tagaynin oo marka la yiraahdo 4.5 ila qabiilada Soomaaliya waa xogaani 0.5 wax fiican ma aha beesha shanaad iyada naftigooda waxoodu ay ku helayaan oo marna uusan ka galin nasiib darro sharcigii wuxuu ku dhamaaday mid in la qabto ay adag tahay xaqiiqatan haddii dalkii uusan mideysnayn heshiis siyaasadeedna uusan jirin oo haddii cid maanta ay tiraahdo aniga magaaladayda ama degaankayga ama gobolkayga lagu qaban maayo hadde waxa weeye wax laga qaban kara ma laha runtii arrintaasi arrin wanaagsan ma ahayn laakiin waa ku khasbanaa waana sheegay habeenkan saxiixay inuusan ahayn sharcigii aan rabay saasay tahayna aanan loo bigaraynin maxaa yeelay Soomaalidu waxay taqaanaa waxaan dan gaar ah kugu jirin ka shaqeyn maysid marka waxaan siri ama lagu arkaa in aad dan gaar ah ku qabto oo aad toonayso dharkeedii saad ku soo noqoto dad badanna waxa laga yaabaa oo runtii lawmakerska naftigoodu mucaarad haddii rabaan iska ahaadaan inay islahaayeen maybe kan aan diidno wax kale aan keenno wareersan waxa laga yaabaa kan farmaajo inuu dan ugu jiro laakiin anigu waxaan arkayay in dalku dan ugu jirto sharcigaas iyo nidaamkaas aan ka soo shaqeynay